cabdirasaaqow wararka naga soo gaaraya degmada Tuluguuleed ee gobolka Faafan ayaa la sheegayaa in dhibaatooyin ay halkaas ka jireen isla markaasna isku dhac dhanka qoomiyadda Oromada iyo qoomiyadda Soomaalida oo dagaal halkaas uu ku dhaxmaray marka hadda waxaan ku suganahay waa referalka deegaanka hadda waxa la keenay 13 dhaawac halka dhimashada la sheegayo inay gaarayso ilaa 13 dhimasho oo ku jiro madaxafiiseedka waxbarashada marka guud ahaan nabadgelyada deegaanka marka laga soo tago dhanka shaqadii ka dhacday galkii dambe meel sabtida dhibaatooyin oo isku dhaca dhanka qoomiyadaha ay wuxuu ka jira degmada Tuluguuleed Mooyaale Baabili iyo waliba Diradhaba halkan aan ku sugan waxa weeyaan waa qaybta emergency-ga referalka deegaanka iyadoo shalay dhaawac ilaa gaaraya 3 ruux la keenay ayaa waqtiyadan waxa la keenay 9 dhaawac cusub iyadoona hadda arkaysiin iyadoo qolka emergency-ga uu yahay qol aad u mashquul badan taasoo keenaysa in ay tahay dhaawac cusub ee waqtiyadan la keenay ciidamadii loo tababaray iyo shiftadii doorka ee midoobay ayaa waxay duulaan ku soo qadeen degmada Tuluguuleed dagaalka halkaas uu nagu qabsaday dabadeedna wixii shacab halka joogay waa la xasuuqay dawladda deegaanka Soomaalidu waxaad moodaa inay indhaha ka lalinayso shacabkii lagu hoos leeyay kama hadli karto oo awood ay xataa dadkii ay ku badbaadiso inay lahayn baa la moodaa waxaan Soomaali meel kasta joogtaba aan macnaha u farayaa inay midoobaan in dalkooda iyo dad ahaan ay istifaacaan dhibaatada aniga waxa ka soo gaadhay xabad garabkayga ka dhacday waa inay dhax fadhidaa wax dhibo saas ma qabo insha Allah dhimashadu waa 12 waxaan soo weeraray ciidamadii fadnooga ee Oromada maleeshiyadii Oromada jabhadii Oromada ee Onaag military iyo sidoo kale iyaga garab siinay madaxafiiseedka caafimaadka degmada Tuli war shacabkan ka gurmada markuu yiri military iyaga madaxa xabad kaga dhuftay waxa soo dhibaan haysata waxaan u baahanahay macnaha haday dawladda deegaanka Soomaalida ee sheeganaysa inay Soomaali tahay shacabkan matalayso haday dawlad Oromo oo Soomaali ku hadlaysa tahay inay cadayso hadaan anagu iyo dal iyo dad ahaan anaan Soomaali hayna inaan macnaha ay go'aan naga qaadato ay tiraado cidaas aatiina cidaa iyo anaga dad iyo dal iyo dadba Oromo ugu deeqnay dee ku daba fayl oo dad iyo dalba bixinay deegaankii bay ugu dhacday cabad bay ugu dhacdo xaga geeska xaga dhigtagtii intay ka soo dhacday iyo deegaanka iga soo baxay nabarkaas ay soo gaadhay afar bay la joogto iyagana midna bowdada kaga dhacday dhabarka labana midna dhabarka midna lugta kaga dhacday afartayada saas noo soo gaadhay wax gurmada anna waxa iyaga midna helin wax ma geli iyaga si gurmad bay heleen oo qolada waxa soo gurmatay makakalayaha iyaga soo gurmatay makakalayaha iyaga gacan siinay naga noomeeyeen halkan waxaan soo qaaday baashi ambulance fan soo qaaday oo halkan ka keentay gabagabeen naga soo qaaday marka rag la laayay waxa lagu leenayaa niman anagu dadka ma weeraro iyaga intay Oromadu ay soo urursato oo hub la soo siiyo shalay dhishiikeena u garaacay anagu macnaa ragii dagaalka ku jiray baan ahayn ragga nimanka meesha ayaa la federal ba ayaa la ogaan buu laayay marka Tuluguuleed inay macnaa ciidamada iyada ay ka baxaan inta loo diiday iyo heshiis inta Mustafa baan dhaweeyay intuu yiri macnaa madaxweynaha iyagu heshiis baan la soo galay iyo aroornimadina la soo weeray marka banki meel aliya meel aan ku aanan garaweynay ilaa aroortiina isku bilowday gobolka noogu dhacay marka Oromo oo dhan baan la dagaalamaysa anaga oo macnaa beesha girka oo manaay cid macnaa na taageeraysa ama hooyo heelna leer ma jirto anagu macnaa dhulkayga anaga u dhiman magaca Soomaaliyeed baan ku dhimaynaa marka madaxweynihii hore Cabdi Maxamuudna macnaa waxa li wuxuu noo qabanayay ma jirto Mustafa iminka wuxuu macnaa noo qabanayo
oo haba yaraatee uu naleeyahay ama intuu sharciga u tago yiraaho dawladda dhexe u yiraaho maxaa dadka lagu leynayaa dadkan Tuli Guuleed dagaalku Tuli Guuleed kaliya ay meel kale ma hayso Soomaali nin kastaba gurigiisu iska jiifa aan cid kastaba waxay leedahay macnaa gari iyo waxay sayay reer bay ku tilmaamayaan saanaka oramaana la dagaalamaysa shalay dhishikayaal baan lagu garaacay marka kale yaabaan leynayo dhishikay intuu soo dhiibay iyaan baabuurta indhahaygan ku arkay anigu waxaan joogay Sandare kowde wadadii meelan ka maran weynii marka anaga dibkan hayso waxa weey anaga iyo Soomaaliduna macnaa dibkan hayso inay ka hadlay oo dadkayga marka sida loo leynayo marka kale yaaba dadkayga leynayo shicibna ma leynayo anaga dharka inta iska soo bedelaan been leynayo dhishika marka kale yaga soo dhiibay anagu markaan iska sii durkinaan ciyaalka iyaga iyo maatideeda ka sii celino marka kale yaaba noo imanayo noor istaagayo noqda nagu leh magacaygu waa Maxamed Ismaaciil Ibrahim waxaan ahay madaxa xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha degmada Tuli Guuleed Tuli Guuleed waxa ku habsatay dhibaato aad u ballaaran muddo 2 sano ayay dagaalo barakac dhimasho iyo baaba badan xasuuq badan barakac badan baa ka dhacay annaga haatan inta maamulka cusub uu joogo shalay waxaa nagu habsaday ciidamada fadnooga ee maleeshiyada deegaanka Oromiya laga leeyahay baa waxay soo weerareen degmada Tuli Guuleed oo ah xaruntii maamulka degmada iyo dhammaan qabaleeyada hoos yimaada degmada Tuli Guuleed dhammaantood ban iyo buurba weerar culus bay soo qaadeen waxa dagaalkan shalay soo qaaday ciidamada fadnooga ayaga oo mataqaanaa garabsanaya dhammaan shicibkii laga soo daabulay dhammaan xuduudaha iyo waxa weeye bartamaha Oromiya dhan laga soo daabulay waxa shalay ku naf waayay 11 qof baa ku naf waayay 11 ka qof ee ku naf waayay waxa ku jira madaxa xafiiska waxbarashada ee degmada Tuli Guuleed Cabdirashiid Allah u naxariisto awlaadii uu ka tagayna Allah samiriye iimaan ka siiyo marka haatan waxa ka taagan dhibaato aad u ballaaran baaba aad u ballaaran waxa weeye wuxuu ahaa xubin kaabineeda oo waxa degmada u tirsan shicibba ayaguna dhintay 8 dhaawacana way jiraan dawladda federaalka iyo dawladda deegaankaba waxaan ugu baaqaynaa in dadkan waxa weeye la gaaro Oromiya ciidankoogii baa garab taagan madaxweynahoogii baa garab taagan fidnoogii baa garab taagan daawacooga iyo meydkooga iyo qorigooga wala la garab carraya annaka shalay toona hadaan nahay beesha gari koombo Tuli hal wada looga baxa halkii wada ciidan iyo makalaakaya fidnooba naga xidhay meydkayagii iyo daawacayagii dadkii shalay iyo darad intay hadda meydkooga aanu haynaa 2 cisho dhammaan meydkayagii daawacayagii lahayn shalay markuu yimid anigu Mustafa waxba weydii waxaan ka codsaday kaliyaata ninkii dhinta Mustafa kaliyaata inaad noo matasho aad daawacayaga dhiig baxay ee dhakhtar laanta u go'doomay inaad noo soo qaado hayuu igu jawaabay anaku gari hadaan nahay ilaahay mooyaane cid kale maniin waxaan sheegayaa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya 3 gobol ee dagaalku ka socda cid u gurmanaysa ma jirto Oromiyana maxaan ku raadaay ciidankooda taas bay u dhex keenayaan wiilka gariga ee hadda lagu dhex toogtay isagoo guri saa furanaya oo maxaan ku raadaay hogaankii nabadgelyada ee Tuli joogay uu ninku makalaakayaaga madaxa kaga dhiftay xabada sabab muxuu ku dilay iyo xafiiska waxbarashada maxaa lagu dilay wiilka macalinka ee lagu dilay baadiya maxaa lagu dilay ma hubbay wateen may dagaalamayeen maxay sameeyeen cid caawinaysa ma jirto cid soo gurmanaysa ma jirto waxaanu ka hadlaynaa magaca Soomaaliyeed baan ka hadlaynaa Soomaaliland waxa meel kasta ay joogtaa loo soo gurmado maanta gari kale ma taagna sheekadu gari kaliya ma taagna gari sheekadu way ka weyn tahay gari sheekadu way soo dhaaftay magaca Soomaaliyeed loo soo gurmado ayaan leenahay anagu ayaal wadnaadsantiin TV-ga RTN inaad nagu soo booqataan Karamara Referral Hospital waxaan ka dacwoonaynaa waxa weeyaan ciidanka militariga ee dawladda federaalka Itoobiya iyo qowmiyadda Oromada waxaan weydiinaynaa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya in dhulkayaga la gatay iyo inaan deegaanka Soomaalida ka mid ahayn haddii dhulkayaga la gatay hana loo cadeeyo haddii aanan la gadanna dee ciidan waxaan u baahannahay ciidan iyo waxaan u baahannahay taageero caawimaad baan u baahannahay ma dadkan Oromada ee nagu dilaysa dhulkayagii miyaana laga qaban kari laayahay haddii na laga qaban kari laayahay na loo cadeeyo
waynahayn ciidanka militariga kaliya hana laga saaro waxaan u baahannahay ciidanka militariga in laga saaro